إنا باجرتا لواي وإكرام الله وهي حمرا إنا تقول شيء يعني وكوبي طبعا أنت لسه يرجرودي لو إيه مين الله جه لما ينقطع هذا ينقطع منه إنجنير فيصل علي حسين قدومية حسب عدالة الدريالك أعد أمان تكهل مقالة هرجيسة حنونت أي كل يهين أي وحى أوسي أن معقولها ينوجها اللي ديلك أمويتان كإكران تهليل فرح oo 16 bishii la hadlaba 2021 lagu waayay magaalada Muqdisho isagoo sheegay in ay jiraan habla kale oo dhowr iyo 10 sida uu hadalka u dhigay weeye oo iyaga laftoodu qarsoomay ama la waayay injineerka ayaa waxa uu sheegay in aanay muhiim ahayn in arinta Iran laga hadlo ama ay warbaahinta qaybaha Soomaaliland ku sugan ay ka hadlaan iyagoo oo bariyahan dambe ay jirtay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed in cadaaladda Iran ay dhamaantood u wada hiilinayeen isla markaana ay taageersanaayeen sidii qoyska Ikraan Tahliil Faarax oo iyadoo ahayd sarkaalad ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay u heli lahayd cadaalad isla markaana loo waafajin lahaa loo horkeyn lahaa maxkamad ciddii ka dambeysay in Ikraan Tahliil Faarax ay lunto hadallada injineer Faysal Ali Xuseen oo maanta ka jeediyay goobtaasina waxa ay ahaayeen sida tan ina baajirta la waayay oo Ikraan la ilaaho oo hay xamara إنا تقول شيء يعني وكوبي طبعا أنت لسه يرجرودي لو إيه مين الله جه لما ينقطع هذا ينقطع منه ninka kalena gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe marka uu warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay wax iska caadi ah inay tahay in deegaanada Soomaalidu ay degto ay ku yaalaan kiniisado iyo meelo ay dadka aan muslimka ahayn ee ka soo horjeestay rasuulkeena subhanahu nabadgelyo naxariis korkiisa aatee ayagu wax ilaahay qeyrkiisa ay ku caabudi karaan waxaana tusaale soo qaatay magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti oo uu sheegay in kiniisado ay ka furan yihiin isla markaana aan wax dhibaato ah ka jirin sidoo kale dawlad deegaanka Soomaalida ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia magaalada madaxdiisa Jigjiga iyo meelo deegaankaasi kamid ah ayaa waxa uu sheegay injineer Faysal Cali Waraabe in kiniisada ka furan yihiin isla markaana aanay wax dhibi ku jirin meelahaas oo kale waxaan maxaa Soomaalida ka dhigay talking point of Somalia Soomaalo dhaba ka hadlaysa haday shibir ku jabta Somaliland Soomaalo dhaba ka hadlaysa oo khamrigu kootarba ku soo galo ma ogtahay ayaa la leeyahay way diintu xagee ka bilaabtay bay Soomaaliya soo gelisay geeska Afrika deesay la ka soo gashay maxamar way soo gashay ma waxa ka gashay galmudug way soo gashay maaro inaga maana golola dhaxdiin bariya ilaahay ugu dhaariyay diintu inay nagu soo horeysay buuga akhriya فتوح الحبش جبوتي ميك هذا شخ جبوتي ولا عرفته قالت جوكته جيجي ما عرفته قالت جوكته بكن استدلي حمر ما عرفته نو دليل ما له تنتا hadalka gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cud injineer Faysal Cali Waraabe ayaa runtii noqonaya mid xasaasiyad ka abuuri doona baraha bulshada kadib markii ay dadku siyaabo kala duwan u fasirtaan kuwa ka eegaya dhinaca diinta islaamka isla markaana fogeynaya hadalka Faysal ee soo dhaweynaya in kiniisada laga furo deegaanada Soomaalida qaarkood oo cusub marka laga tago kuwii hore ay uga furnaayeen iyo kuwa kale oo iyaguna si kale u eegaya oo ka hadlaya maqnaanshaha Ikraan Tahliil Faarax sarkaaladaasi ka tirsaneed hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan National Intelligence and Security Agency ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho taasi oo khilaafooyin ka dhaxdhalisay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib markii uu ra'iisul wasaare Roble xilka ka qaaday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir gudoomiyaha hay'adda NISA iyadoo lagu eedeynayo maqnaanshaha Ikraan Tahliil Faarax oo ay ugu cid dambeysay 26 bishii 6 2021 8 fiidnimo markaasi oo ay khadka telefoonka kula hadlaysay hooyadeed qaali oo ku sugnayd dalka Turkiga halka aad warkaasi kala socotaan waa aqoonsi TV anigoo Mustafa Xaaji Aadan Haaruna ayaa idin la socodsiinayay warkan war la mid ah intaanu ku kulmayno sidaas iyo fi amaan Allah